asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan wanaagsan daawadayaal madaxweynaha yukraaniyiinta valadimir zelenski maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku mashquulsanaa booqashada furimaha hore ee dagaalka iyo weliba tuulooyin ay yukraaniyiintu aaminsan yihiin in ciidamada ruushka intii ay ku sugnaayeen ay ka geysteen gaboodfalyo iyo falal ka baxsan bini'aadannimada. toddobaadyadii lasoo dhaafay oo dhan waxa uu ku mashquulsanaa inuu gaaro safaro kala duwanna ku tago bariga iyo koonfurta dalka, halkaasoo iskula sawiraya ciidamo aad u fara badan oo kuwa yukraaniyiinta uuna sheegay inay yihiin goobahaasu kuwa ay dagaal rasmiya kaga jiraan. sidoo kale dhowaantan waxa uu booqday tuulada buja oo iyadu ku taalla waqooyiga magaalada caasimadda yukraaniyiinta u ah kiyef. tuulada ayay reer galbeedka iyo yukraaniyiintuba aaminsan yihiin inuu ka dhacay xasuuqii ugu darnaa ay geysteen ciidamada ruushka ahi. ilaa iyo haddan dowladda yukrain waxay sheegtaa maalinbata ka dambaysa tuulada inay ka hesho meydad hor leh iyo xabaalo wadareedyo. arrimahaas ayaa waxay yihiin kuwa dowladda yukrain ay calooljilac kaga raadinayso dowladaha reer galbeedka iyo weliba inay usoo dedejiyaan hubabka kala duwan ay doonayaan inay kula dagaalamaan ruushka. valadimir zelenski waxa uu sheegay in dowladda ruushka si iyo si kaleba maalinuun yukraaniyiintu ay kula xisaabtami doonaan gaboodfalyada ay ka geysteen gudahooda iyo weliba daandaansiga ay ku soo qaadeen dalkooda. balse daawadayaal, dowladda yukrain ayay ahayd tii 2014 bilowday daandaansi toosoo ruushka ka dhan ah markii ay u hanqaltaagtay iyadoo kumanaan sano ahayd dowlad bariga taabacsanna dalka ruushka inay ku biirto gaashaanbuurta nato, iskana yeesho inay qaadato dhaqanka reer galbeedka oo isaga aynu ognahay inuu yahay mid khiyaali ku dhisan. waa dowladda yukrain oo dadkeedu ay yihiin kuwa ruushka oo kale ah, kumanaan sanana ku hoos noolaa boqortooyooyinkii iyo maamuladii kala dambeeyey ruushka. waa dowladda yukrain dadkeeda oo cunto, magac iyo diin ahaanba aan ka duwanayn kuwa ruushka ah. waxaaba iska adag inaad kala saarto ninka yukraaniga iyo ninka ruushka ah. tusaalena waxaa kuugu filan arrinta labada madaxweyne ee dalalka yukrain iyo ruushka, labadoodaba waxaa la yidhahdaa valadimir. qoraalku ha kala duwanaado balse dhawaaqu waa isku mid. dowladda yukrainiyada ayaa maalin ku caasiday dalka ruushka una hanqaltaagtay dhaqan aanan la jaan qaadi karin. ugu dambaynna waxay ka dhaxashay 3 meelood oo 2 meelood iyo ka badan dadkii dalkeeda u dhashay oo ka badnaa 40 milyan inay dalkooda ka hayaamaan. waaba wixii ka carari karaye iyo weliba 90% inuu burburo dalkii yukrain. horraantii dowladda ruushku waxay ahayd mid bartilmaamaysanaysa goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin iyo goobaha laga helo tabarta aynu u naqaano kaabayaasha dhaqaalaha. balse xilliyadii dambe markay yukraaniyiintu joojin waayeen dalabaadka kala duwan ee dowladaha reer galbeedka u dirsanayaan hubabna kaga codsanayaan ciidamada ruushku waxay ahaayeen kuwa meel walba weeraraya. yukraaniyiintuna waxay ka dhaxleen arrintaa in dalkoodii 90% uu noqdo mid burbursan. ilaa iyo haatan madaxweynaha yuhuudiga ee ka taliyay dalka yukrain waa mid reer galbeedka kasii codsanaya hubab uu kusii dagaalamo, xilli ay gudaha dalka yukrain iyo dalalka reer galbeedkaaba ka bilaabatay isweydiin ku aadan ninkan iyo qorshihiisa. waxaa jira dadyo badan oo kirishtaan oo u arkaa in ninkan yuhuudiga uu ku talagalay inuu halkaa ku laayo dadka kirishtaanka ah, maadaama ay yuhuudda yukrain ka tahay wax ka yar 1%.